jaamacadda Makerere ee dalka Uganda ayaa waxa ay ka jira caado lagu magacaabo galmo ku bedelo natiijada imtixaanka. Macallimiinta ayaa ardayda natiijada imtixaanka u kordhiya ama kor ugu qaada haddii ay u galmoodaan. Sidoo kale ardayda qaar ayaa iyaguna macallimiinta weydiista natiijo fiican oo iyaguna sidaas oo kale sameeya. Warbixin la soo saaray bishii koowaad ee sanadkan ayaa tilmaantay in xadgudbyadu ay faraha ka sii baxayaan, caadana ay ka noqdeen jaamacadda dhexdeeda. Caasha Afrax ayaa inooga waramaysa. Macallinkan aan ka hadlayo ayaa igu khiyaameeyay inaan gurigiisa u raaco si uu ii kufsado. Sideed uga soo baxsatay xaaladda? Waan isdejiyay, sawirro ayaana isaga iyo qolkiisaba ka qaaday. Hal qol lee uu ka koobnaa gurigiisa marka. Waan hubay haddii sawirradaasi tusiyo maamulka jaamacadda inay aamini doonaan inaan runta sheegayo. Waxaa la ii baray in haddii uu ninka isku dayo inuu i kufsado inaan isdejiyo oo aan isdhiibo kadibna aan haraanti uga dhufto halka ugu xanuunka badan. Monica waxa ay go'aansatay inay jaamacadda uga dacwoto macallinkeeda. Sanad ayaa ka soo wareegay dacwadeyda, cidna wax maysan ii qaban. Madaxda jaamacadda ayaa ka daba socday balse waxba maysan ii qabanin. Wayba isii dhibaateynayeen oo ayagoo igula hadlaya hadallo cay ah sida nacas ayaa tahay, balse dhag uma aan dhigin. Jaamacadda ayaa samaysay guddi si ay u baaraan kiiskeeda, balse Monica ma aanay ku qanacsanayn xubnaha guddigaasi. Su'aalaha la ii weydiiyey waxa ay ku saabsanaayeen in aan caddeeyo inuu macallinkan igu xadgudbay. Marka waxaan tusay caddeymaha aan hayay oo ahaa sawirradii aan ka qaaday isaga iyo gurigiisuba. Waxaan ugu sheekeeyay xaaladda aan ku jiray. Waxaa kale oo aan weydiiyey haddii ay rumaysteen hadalkayga. Waxaan rabay inaan macallinka wajaho guddiga inta aanan ka hor iman, laakiin samaysan suuro gelin. Monica waxbarashadeedii waa ay kadib dhacday. Jaamacadduna waxa ay u sheegtay inaysan sii wadan kari doonin. Warqad kaga timaaday xafiiska ku-xigeenka madaxa jaamacadda ayaa sheegtay in baaritaankii kiiskeeda lagu ogaaday inay ku jirtay jawi xadgudub jinsiyeed, waxaana loo oggolaaday inay dib ugu soo laabato jaamacaddeeda. Waxaa la igu celiyey kuuliyadii hore iyadoo uu macallinku igu xadgudbay iyo weliba uu i barayo. Waan ka dacwooday arrintan balse cidna dheg maysan ii dhigin. Waxaan dareemay inay cadaalad ahayn in la igu celiyo isla kuuliyadaasi. Warbixin ay soo saareen guddi madax bannaan ayaa sheegtay in ka badan kala bar gabdhaha iyo 40% wiilasha ardayda ahi ay ka cabanayaan xadgudubyada jinsiyeed oo ay macallimiinta jaamacadda ay ku hayaan. Ku-xigeenka cusub ee madaxa jaamacadda ayaa sheegay inay ka go'an tahay in wax ka qabto dhaqamada tacadiyada jinsiyeed. waxaynu leenahay hannaan dhigaya in jaamacadda Makerere aanan loo dulqaadan doonin tacadiyada dhinaca galmada. Waxa kaliya aan ogaaday ayaa waxay tahay in hannaanku aanu qayaxayn tallaabada ay tahay in laga qaado qofkii laga soo dacwoodo. Taasna ma aha arrin aan ku qancay, lamana sii dabagelin. maadaama ay dumar badani ay ka warqabaan ololayaasha qaar sida Me Too, waxa ay u muuqataa inay dumar badani ay ka hadli doonaan dhibaatooyinkaasi.